warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa dhul dalxiiseedka ku yaala gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka mid yihiin deegaanada Gaacid, Midhasho, Gudmo, Biyacas, Calmadow, Buurta Daalo, Dawga Tabca iyo deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala kuwaas oo taariikh iyo sidoo kale goobo dalxiiseed leh. Dalxiisayaasha booqda ayaa sanadadii u dambeeyay si labalaamayay waxaana dalxiisayaasha oo ka kala yimaada dhulka Soomaalidu degto iyo dalka dabadiisa kolka ay booqdaan dhul dalxiiseedkaasi farxad geliya jawiga iyo quruxda iyo waliba kala sareynta iyo cida shimbiraha oo ay jeclaystaan inay sii joogaan muddadii ay ku tala galeen muddo ka badan. magacaygu Cabdirashiid Axmed Iimaan markii koowaad aan imaado gobolkan Sanaag gaar ahaan gobolkan baaxad weyn leh quruxda badan leh waxyaabahan ku arkay waxa muddo yar oo kooban aan joogay waxa kamid ah cagaar badan oo aad u qurux badan dhul baaxad weyn oo Soomaaliland inta kale aad uga qurux badan ka cagaar badan kana cimilo fiican oo dhul aad u environment-giisu iyo roobkiisu aad u badan yahay xamaanta farxad gaaraya in Buurta Daalo aan dul imaado anigu muddo dhigta ka maqlaayay buugaagta Soomaaliga ku qaadan jiray inay tahay halka dalkeena ugu sareysa inay tahay meel aan dhirteedu gu iyo jiilaal aysan isbedelin cagaarkeedu aan ku arkay daruurtu inay ka hoos marayso intiiba maanta waa arkay alxamdulillah rabbil caalamiin anoo macalina waa ugu dhigay arday iyadoo reelena maanta indhahaygan ku arkay horta Sanaag waa gobol aad iyo aad u qurux badan laakiin quruxdiisa iyo dalxiiskiisa inta badan aan la arag waa in dadku soo gaari anigu Sanaag iyo Cergaabo u dhashay baan weligii halkan iman Gaacid oo meel aad u qurux badan qiimo badan oo dhul sare oxygen badan cagaaran oo wax kasto qurux badan qof bini'aadan ku digi kara ay yaaleen waana qayb yar oo kamid ah dhulka Soomaaliland gobolka Sanaag ay leedahay ee dhulka dalxiiska ah wanaagsan marka dadka marka koowaad waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ka qayb qaataan dalxiiskooda dalka gudihiisa taasi waxay kobcinaysaa guud ahaan dhaqaalaha dalka dalbarashada waxayna wax weyn u taraysaa dadka deegaanada jooga iyo dhulbarashada iyo qurux iyo wanaag dadkana maskaxdooda iyo aqligooda way fiicnaanaysaa marka dhul sidan oo kale u cagaaran yimaadaan ay joogaan ee waqti ay geliyaan deegaanashaha helaan waxaan ka soo ambabaxnay magaalada Cergaabo annaga oo soo marnay wadada Tabca waxaan ku sugannahay hadda magaalada la yiraahdo Gaacid runtii waa deegaan aad u qurxoon jawi degan roobka iyo waxa weeyaan ceeriyaantu ay mar walba waxa weeyaan inta badan ay waxa weeyaan iska joogaan roobkuna uu ka daayo beero iyo waxa weeyaan maxay toolay dalagyadii kala duwanaa ay ka soo go'ayaan oo ay ka baxeen oo ka beeran yihiin runtii anigu maan ka filaynin in goobo noocan oo kala ay wadanka ku yaalaan oo waxa weeyaan dabeecada noocaas leh waxaan ku talinayaa in wadanka waxa weeyaan loo soo jeesto la maalgashto. Dawga Tabca ee marinka waa magaalo xeebeedda Maydh iyo Cergaabo waxa ku yaala godkan caanka ah kaasoo muddo ka badan 40 sano ay baabuurta iyo dadku hoos marayeen inkastoo xilligii la dhisay lagu qoray taariikhda uu dumayo oo ay haatan dhaaftay misana wali waa la adeegsadaa marinkiisa. Buurta Daalo waxa sidoo kale ku yaala taalada Araweelo oo ragga maraya halkaasi ay dhagax ku tuuraan halka dumarkuna geed caleen leh saaraan waxana taasi kaliftaa in ragga iyo dumarku ay ku kala aragti duwanaadaan taalada Araweelo xilliga ay joogaan halka ay raggu u qabaan inay dhibaato weyn u geysatay Araweelo dumarkuna u arkaan in ay maamuuska mudan tahay. anigu taariikhda ma jirin laakiin saa sheekada u hayo wax la yiri qoftani ragay la colahay magaceed xiliya mooyaane wax la yiraahdo ragay xiliya ka jiri jirtay ma iyada magaceed baan leeyahay anigu magaceeda ma aqaan haye maxaa lagu sheegaa Araweelo way ka soo marka waxa weeye meesha waa ku nasatay ee kuma aasna haye waa meel ay ku nasatay dhagaxan maxaa saaray meesha waxa ragga saara haye raggu dhagax buu ku dhiftaa oo saara haye dumarkuna waxay saaraan caleen haye taariikhdeedu caynkaas ay ahayd muddo intee leeg baa la leeyahay ka soo wareegtay imika maxaa ka soo wareegay waa qarnigii hore waxaan ka mid magaalada Hargeysa waxaan u nimid dalxiis gobolka Sanaag gaar ahaan Cergaabo waxaan joognaa hadda Buurta Daalo oo ah buuraha ugu quruxda badan dalka dalxiiskana ugu fiican dalxiiskaygaasi waxa qayb weyn ka qaatay agency-ga la yiraahdo Elsar Tourism Agency
cabdiraxmaan axmed ilsar saab t v wararka gobolka Sanaag.